بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gudaha dalka iyo dibaddaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaanan idin leeyahay ciid mubaarak, kulla caamin wa antum bikhayr. marka hore aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadaha islaamka munaasabadda barakaysan ee ciidul fitriga awgeed. waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naga aqbalo soonkii, salaadii, sadaqadii iyo dhammaan cibaadooyinkii aan gudannay bishii barakaysneed ee Ramadaan. waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, kuwaas oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka iyo badbaadinta shacabka, iyaga oo weliba sooman. geesinimadooda iyo nafurnimadooda waxay udub dhaxaad u yihiin nabadda, xasiloonida aan maanta ku naaloonayno. ciidul fitriga waa munaasabad farxad iyo isu naxariisasho, iscafin iyo isu duubni u ah bulshada muslimiinta ah. waa maalin aynu ku xasuusanno qiimaha walaaltinimada iyo iscaawinta. sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan midnimada, wadajirka, iscaawinta iyo is-ixtiraamka si aan u dhisno dal nabdoon oo barwaaqo ah. walaalayaal, diinteenna suubane waxayna baraysaa in maalmahan barakaysan aynaan iloobin dadka danyarta ah, kuwa aan awoodin in ay helaan farxadda iyo raaxada ay qoysas badan wadaagayaan. sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, culimada, hay-adaha samafalka inay isu kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadka tabaalaysan, loona hubiyo in qof walba uu dareemo farxadda ciidda. sidoo kale waxaa muhiim ah in aynu si gaar ah u xasuusanno caruurta agoonta ah iyo dadka nugul ee waayey daryeelkii ay u baahnaayeen. caruurtaasi waxay u baahan yihiin jacayl, daryeel, garab istaag. waana waajib ina saaran dhammaanteen in aynu ka shaqayno sidii aan uga farxin lahayn maalmahan ciidda ah, uguna abuuri lahayn rajo iyo kalsooni mustaqbalkooda ah. ciiddan waxay ku soo aadaysaa iyadoo ay dalka ka jirto abaar aad u daran oo saamaysay dadka iyo dunyadaba. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay wadaa dadaallo ballaaran oo loogu gurmanayo bulshadeenna ay abaartu hayso. shacabkana meel walba oo ay joogaan waxaan ku boorinaynaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka walaalahooda tabaalaysan. sidoo kale colaadaha ka aloosan bariga dhexe ayaa iyaguna uga sii daray xaaladda, saameynna ku yeeshay ascaarta badeecooyinka muhiimka u ah nolosha bulshadeenna. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay ku baaqaysaa in dagaaladaasi si deg deg ah loo joojiyo, khilaafkana lagu xalliyo ama lagu dhammaystiro wada hadal si looga baaqsado masiibooyin ay adag tahay in laga soo qabto mustaqbalka dhow. annagoo garwaaqsan duruufaha ka soo cusboonaaday suuqyada caalamiga ah iyo saameynta ay ku yeesheen qiimaha maciishadda, waxaan si gaar ah ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay muujiyaan mas-uuliyad qaran iyo damqasho bulsho, hoosna u dhigaan qiimaha badeecadaha daruuriga ah inta suurtagal ah, gaar ahaanna maalmahan ciidda ah, si ay u fududaato nolosha shacabka danyarta ah, loona wadaago farxadda ciidda. si hawshaas ay u noqoto mid taabagal ah, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya waxay magacaabaysaa guddi ka kooban wasaaradaha maaliyadda, qorsheynta, ganacsiga iyo warshadaha, rugta ganacsiga, xeer ilaalinta guud iyo hanti dhowraha guud. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, sanadihii u dambeeyey waxaa dalka ka socday dadaallo xooggan oo lagu xoojinayo amniga, dib u dhiska dowladnimada iyo horumarinta dhaqaalaha. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa ka go'an inay sii wado dadaaladaas si loo xaqiijiyo mustaqbal wanaagsan oo ay helaan jiilasha soo koraya. sidoo kale waxaan baaq nabadeed iyo cafis 90 maalmood ah
u fidinayaa dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka tirsan ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaan ugu baaqayaa in ay ka soo noqdaan wadada khaldan ee ay ku habaabeen, una soo laabtaan bulshada Soomaaliyeed ee ay ka mid yihiin. Dowladda Federaalk ee Soomaaliya waxay mar walba diyaar u tahay inay soo dhoweyso dhallinyaradaas, una abuurto mustaqbal sharaf leh oo ay kaga qayb qaataan dhismaha dalkooda. Sidaas darteed, waxaan hay-adaha amniga iyo garsoorka faraya in ay soo dhammaystiraan habraaca fulinta cafiskan. Sidoo kale, maanta oo kale sanad ka hor waxaan ku dhawaaqnay furitaanka goglo wada hadal oo loo dhan yahay si ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta, hogaamiyaasha bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha dalka, loogana wada tashado arrimaha masiiriga ah ee ummadda Soomaaliyeed. Muddo sanad ah oo ka soo wareegtay xilligii goglahaas, waxaa la qabtay goglo wada hadal oo midho dhal ah, kuwaas oo bulshada Soomaaliyeed markhaati ka tahay doorka hogaamineed ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya hormuudka ka ahayd. Isu soo dhowaanshaha, isu tanasulka iyo ku xallinta khilaafaadka hab nabadeed ayaa aasaas isaldhig u ahaa goglahaas iyo wada hadalladaas. Waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in goglahaasi ay weli furan yihiin, wada hadalkuna uu yahay jidka keliya ee lagu gaari karo xal waara iyo dowladnimo dhammaystiran. Walaalayaal, ugu dambeyntii waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dalkeena siiyo nabad waarta, barwaaqo iyo horumar. Waxaan rajaynayaa in munaasabadan Ciidul Fitriga ay noqoto mid farxad, jacayl iyo rajo cusub u horseeda dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Walaalayaal, waxaan idin leeyahay Ciidul Mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Kullu caamin wa antum bikhair. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.